Maxamed Saleebaan Tubeec 1941 ayuu dhashay. Waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta iyo hal abuurada caanka ah ee Soomaaliya. Marxuumka oo loo yaqaanay boqorkii balwada waxa uu kaalin mug leh ka qaatay horumarinta fanka Soomaalida. Codkiisa gaarka ah, qoto dheernimadiisa murtida leh iyo wax ku biirinta fanka Soomaalida casriga ah waxa uu dhaxalgal waara uga tagay Geeska Afrika. Maxamed Saleebaan Tubeec socdaalkiisa faneed waxa uu bilaabay 1960 isagoo oo si weyn uga dhex muuqday fanka Soomaalida. Waxa uu ka mid ahaa Hoballadii Waaberi oo ahayd koox faneedii ugu saameynta badneyd taariikhda Soomaalida. Heesihiisu waxa ay inta badan taabanayaan mowduucyada jacaylka, dhaqanka, wadaniyadda, iyagoo si qoto dheer ula falgalaya dhageystayaashiisa. Marxuumka ayaa sanadkii 2014 ku geeriyooday dalka Jarmalka. Waa warbixintii Khalid Basho Waare.